Jeff Bezos, sheekada ninkii aasaasay Amazon. Ma rumaysan kartaa in nin shaqadiisii mushaharka badnayd ka tegay si uu uga bilaabo garaash yar? Dad badan waxay u haysteen inuu waalan yahay. Qaar waxay yidhaahdeen fikraddiisu ma shaqayn doonto. Laakiin maanta ninkaas wuxuu dhisay Amazon oo ah shirkadda ugu weyn ee wax lagu iibiyo internetka, wuxuuna noqday mid ka mid ah dadka ugu taajirsan dunida. Maanta waxaan ka sheekayn doonaa taariikhda Jeff Bezos, safarkiisii cajiibka ahaa, caqabadihii uu la kulmay, iyo sida uu u beddelay ganacsiga caalamka. Carruurnimadiisa. Jeffrey Preston Bezos wuxuu dhashay 2 Janaayo 1964 magaalada Albuquerque ee gobolka New Mexico, Maraykanka. Hooyadiis Jacqueline Gise waxay ahayd 7 jir markii ay dhashay Jeff. Aabbihii dhalayna muddo yar kadib ayuu ka tegay qoyska. Markii Jeff uu 4 sano jiray, hooyadiis waxay guursatay nin u dhashay Uba oo lagu magacaabo Miguel Bezos. Miguel wuxuu korsaday Jeff wuxuuna siiyey magaciisa. Sidaas ayuu ku noqday Jeff Bezos. Jeff wuxuu ku soo koray qoys qiimeeya waxbarashada iyo dadaalka. Xiisihii tiknoolajiyadda. Jeff wuxuu ahaa ilmo aad u xiiseeya sayniska iyo farsamada. Wuxuu kala furfuri jiray qalabka guriga si uu u fahmo sida uu u shaqeeyo. Mararka qaar waalidkiis way ka xanaaqi jireen, laakiin waxay ogaayeen inuu leeyahay maskax hal abuur leh. Xitaa isagoo yar ayuu qolkiisa ka sameeyey shay digniin bixiya si walaalihiis aysan u soo gelin. Taasi waxay muujinaysay inuu jeclaa xalinta dhibaatooyinka. Waxbarashadiisa. Jeff wuxuu ahaa arday aad u firfircoon. Markii uu dhammeeyey dugsiga sare, wuxuu galay jaamacadda Princeton. Halkaas ayuu ku bartay Computer Science iyo Electrical Engineering. Wuxuu ka qalin jebiyey 1986 isagoo ka mid ahaa ardaydii ugu sarraysay. Shirkado badan ayaa isla markiiba shaqo u bandhigay. Shaqooyinkii ugu horreeyey. Jeff wuxuu ka shaqeeyey shirkado dhowr ah oo tiknoolajiyadeed. Kadib wuxuu ku biiray shirkadda maalgelinta ee The Show. Muddo yar gudaheed wuxuu noqday ku-xigeenka ugu dada yar ee shirkadda. Wuxuu lahaa mushahar aad u sarreeya iyo mustaqbal ifaya. Laakiin maskaxdiisa waxaa ku jiray hal su'aal. Maxaan samayn karaa oo beddeli kara dunida? Fikraddii Amazon. Sanadkii 1994, Jeff wuxuu arkay warbixin sheegaysay in isticmaalka internetku sanadkiiba korayo in ka badan 2. Tiradaasi aad bay uga yaabisay. Wuxuu garwaaqsaday in internetku noqon doono mustaqbalka ganacsiga. Markaas ayuu go'aansaday inuu shaqadiisii iska casilo. Dad badan waxay ku yiraahdeen, ha samayn. Laakiin waa shaqada ugu fiican. Halis ayaad gelaysaa. Laakiin Jeff wuxuu rumaysnaa fikraddiisa. Bilowgii Amazon. Jeff iyo xaaskiisii waxay baabuur ku safreen New York ilaa Seattle. Intii ay jidka ku jireen ayuu qorshaynayay ganacsigiisa cusub. Markii ay gaareen Seattle, waxay ka kiraysteen garaash yar. Halkaas ayay ka bilaabeen Amazon. Bilowgii Amazon waxay iibin jirtay buugaag oo keliya. Sababta uu buugaagta u doortayna waxay ahayd in ay jireen malaayiin cinwaan oo aan hal dukaan lagu wada hayn karin. Internetka ayaase taas suurtagelinayay. Maalmihii ugu horreeyey. Bilowgii Jeff ayaa xirmooyinka buugaagta gacantiisa ku diyaarin jiray. Isaga iyo shaqaalihiisu waxay habeen iyo maalin shaqayn jireen. Mararka qaar waxay ku shaqayn jireen miisas ay iyagu ka sameeyeen albaabo duug ah. Jeff wuxuu aaminsanaa in lacagta lagu badbaadiyo alaabta xafiiska lagu maalgeliyo kobcinta shirkadda. Koritaankii Amazon. Muddo yar kadib, Amazon waxay noqotay goobta ugu weyn ee buugaagta internetka. Kadib waxay bilaabeen iibinta adeegyada, DVD-yada, qalabka elektarooniga, dharka, alaabta guriga, iyo malaayiin badeecooyin kale. Amazon waxay si tartiib ah u noqotay suuqa ugu weyn ee wax lagu iibiyo internetka. Amazon Prime. Sanadkii 2005, Jeff Bezos wuxuu soo bandhigay adeeg cusub oo la yiraahdo Amazon Prime. Dadku waxay bixiyeen lacag sanadle ah. Beddelkeedana waxay heleen gaarsiin degdeg ah iyo adeegyo kale. Dad badan markii hore way ka shakiyeen. Laakiin maanta Prime waxaa isticmaala malaayiin qof. Waxayna noqotay mid ka mid ah adeegyada ugu guusha badan dunida. Amazon Web Service. Mid ka mid ah guulihii ugu waaweynaa wuxuu ahaa Amazon Web Service ama AWS. AWS waxay shirkadaha ka caawisaa kaydinta xogta iyo adeegyada internetka. Maanta shirkado badan oo waaweyn ayaa adeegsanaya AWS. Waxayna Amazon ka heshaa dakhli aad u badan. Blue Origin. Jeff Bezos kuma ekaan Amazon. Wuxuu aasaasay shirkadda hawada sare ee Blue Origin. Himiladiisu waa in safarka hawada sare uu noqdo mid caadi u noqda dadka mustaqbalka. Wuxuu sheegay in riyadiisu tahay in malaayiin qof ay maalin uun ku noolaadaan hawada sare. The Washington Post. Sanadkii 2013, Jeff wuxuu iibsaday wargeyska caanka ah ee The Washington Post. Dad badan way la yaabeen go'aankaas. Laakiin wuxuu dib u casriyey wargeyska isagoo adeegsanaya tiknoolajiyad cusub. Noqoshada ninka ugu taajirsan dunida. Sanadihii xigay, qiimaha Amazon aad buu u kordhay. Saamiyada shirkadda ayaa kor u kacay. Jeff Bezos wuxuu noqday ninka ugu taajirsan dunida dhowr jeer. Inkasta oo qiimaha hantidiisu isbeddelo maalin kasta, haddana weli wuxuu ka mid yahay dadka ugu qanisan caalamka. Casharrada laga baran karo. Sheekada Jeff Bezos waxay ina baraysaa. Halis la'aanteed guul weyn ma timaado. Ha ka baqin inaad ka tagto aagga raaxada haddii aad leedahay himilo weyn. Macaamiishu waa inay noqdaan mudnaanta koowaad. Guusha weyn waxay u baahan tahay dulqaad iyo dadaal joogto ah. Hal fikrad oo wanaagsan ayaa beddeli karta dunida.
maanta Amazon waa shirkad ay malaayiin qof isticmaalaan maalin kasta. Laakiin wax walba waxay ka bilowdeen garaash yar iyo nin rumaysnaa riyadiisa. Jeff Bezos wuxuu caddeeyey in guushu aysan ku xirnayn meesha aad ka timid, balse ay ku xiran tahay meesha aad rabto inaad gaarto iyo dadaalka aad u hurayso. Haddii aad ka heshay sheekadan, fadlan like saar, subscribe samee, kana tag faallo adigoo sheegaya qofka taariikhdiisa aad rabto inaan muuqaalka xiga ka samayno. Mahadsanidin.